madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha dimuqraadiyadda reer galbeedka in ay ku daydaan boqortooyada midowga UK intii lagu guda jiray booqashadii lama filaanka ahayd ee ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo Sabtidii ku tagay Ukraine. Waa inaan cadaadis saarno qaabka cunaqabateynta. Waxaan u mahadcelinayaa boqortooyada Ingiriiska oo sii wadaysa oo xoojisa cunaqabateynta, sidoo kale waxay siisaa taageero muhiim ah Ukraine anagoo xoojinayna awoodeena difaac. Zelensky ayaa ka sheegay shir jiraa'id isagoo ku baaqay wadamada reer galbeedka in ay cunaqabateyn ku soo rogaan ilaha tamarta ee Ruushka hub badan ay siiyaan Ukraine. Isagoo ugu yeeray dagaalka Moscow mid aan marmarsiyo lahayn, Johnson wuxuu ballan qaaday inuu xoojin doono cunaqabateynta saaran Ruushka. Ma ahan oo kaliya in la xayiro hantida bangiyada iyo cunaqabateynta kalitaliyaasha, laakiin ka fogaanshiyaha isticmaalka kaarboonada Ruushka. Waxa uu sidoo kale ballan qaaday in Britain ay ka caawin doonto nadiifinta miinooyinka ay ka tageen ciidamada Ruushka. Waxa uuna sheegay in Britain ay xoreyn doonto ganacsiga kala dhexeeya Ukraine. Safarka ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee Johnson uu ku tago dalka ay dagaaladu halakeeyeen tani markii uu Ruushku qabsaday. Afhayeen u hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha UK Downing Street ayaa sheegtay in hogaamiyaha Britain uu u safray Ukraine si ay u muujiyaan garab istaaga dadka Ukraine oo uu damacsanaa inuu u soo bandhigo xirmo cusub oo gargaar militari iyo maaliyadeed ah. Safaaradda Ingiriiska ee Kiev ayaa ku dhawaaqday booqashada iyada oo la wadaagaysa sawirka Twitter ee Johnson iyo Zelensky Sabtidii. Labada hogaamiye ayaa la soo sawiray iyagoo iska horfadhiya miiska shirka, waxaana gadaal ka suran calanka Ingiriiska iyo Ukraine. Andriy Yermak, madaxa xafiiska madaxtooyada, ayaa ugu yeeray wada hadalka Zelensky iyo Johnson mid buuxa oo wax dhisaya. Yermak wuxuu sheegay inuu si joogto ah ula xiriiro la taliyaha amniga qaranka Johnson, Stephen Lovegrove, iyo David Kuwere, la taliyihiisa arrimaha dibadda. Sidaa darteed booqashadu ma ahayn mid iska timid. Goor dambe oo Sabtidii ah, Zelensky wuxuu la wadaagay video kanaalkiisa Telegramka uu ku muujinayo labada nin oo lugaynaya wadooyin faaruq ah oo ku yaal Kiev oo ay garab taagan yihiin askar. Nin Ukraine ah oo ay kula kulmeen hal wado oo gees ah ayaa ku qayliyay Johnson ka hor inta uusan gacan qaadin. Intii ay socdeen socodkooda, haweeney sheegtay inay ka timid Kharkiv waxay siisay Johnson iyo Zelensky diiq dhoobo ka samaysan, taas oo calaamad u noqotay adkeysiga Ukraine kadib markii mid ka mid ah dhoobada noocaas ah uu ka badbaaday weerar Ruushku ku qaaday dhismo ku yaala tuulada Borodyanka ee u dhow Kiev. Xafiiska madaxweynaha ayaa sidaas yiri. Johnson wuxuu u safray Ukraine bishii Febraayo xilli Ruushka isku diyaarinayay inuu soo galo. Oliver Dowden oo ah gudoomiyaha xisbiga Conservative Party ayaa u sheegay LBC Radio bishii hore in ra'iisul wasaaraha Britain uu ka quustay inuu aado Ukraine oo uu xiriir shucuur dhab ah la leeyahay dadka reer Ukraine. Zelensky wuxuu si isdaba joog ah u amaanay Johnson isaga oo ugu yeeray tusaale hogaamiyaasha kale ee adduunka. Johnson iyo Zelensky ayaa lagu soo waramayaa inay hadlaan maalmaha nagu soo aadan. Britain waxa ay u dhaqaaqday inay caawiso Ukraine ka hor wadamada kale ee Yurub. Zelensky ayaa Sabtidii wuxuu mahadnaq u muujiyay Johnson mowqifka tooska ah, aadka u cad, iyo mowqifka gaarka ah ee dalkaaga cajiibka ah oo awood badan, isagoo ugu mahadcelinaya booqashada oo ugu yeeray saaxiibkayaga ugu daacadsan. Waxaa timid halkan, waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa in tani ay dhacday. Tani waa mid ka turjumaysa taageerada muhiimka ah ee Ukraine ee boqortooyada midowday. Mar walbana waan uga mahadcelinaynaa taas, mar walbana waanu xasuusan doonaa taas, ayuu yiri Zelensky. Safarka Johnson ayaa yimid maalin kadib markii uu ku dhawaaqay in Britain ay siin doonto $130 milyan oo dheeri ah oo hub ah Ukraine kadib qarax aan laga fiirsan oo ka dhacay xarun tareen oo ku taal bariga Ukraine. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Talyaaniga Silvio Berlusconi ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay habdhaqanka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Maalqabeenkan oo muddo sanado ah saaxiib dhow la ahaa hogaamiyaha Ruushka ayaa sheegay in Putin looga fadhiyay inuu si buuxda indhaha caalamka uga qaado mas'uuliyadda duulaanka Ukraine. Waxaan bartay isaga 20 sano ka hor, mar walbana wuxuu iigu ekaa nin dimuqraadiyad iyo nabad leh. Waa wax laga xumaado, Berlusconi ayaa yiri isagoo ka hadlaya shirweynaha xisbigiisa muxaafidka ee Forza Italia ee Rome. Gantaalada Ruushka ayaa burburiyay garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Dnipro ee dalka Ukraine, waxaana weerarkaas ku dhaawacmay 5 ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega ah. Weerar kale ayaa ka dhacay garoonka Dnipro. Ma jiraan wax ka haray oo gebi ahaanba uu burburay. Valentin Resnichenko oo ah gudoomiyaha gobolka dhexe ee Dnipro Petrovsky ayaa yiri Axadii garoonka diyaaradaha laftiisa iyo kaabiyaashii dhaqaalaha ee ku xeernaa waa la burburiyay. Gantaalo ayaa sii duulaya oo duulaya, ayuu Resnichenko ku yiri Telegramkiisa.
gantaal ayaa sidoo kale ku dhacay dhismo ku yaal degmada Buffalo Rag ee magaalada. Shaqaalaha gurmadka ayaa ku guda jira howl shaqo baaritaan goob kaabayaal ah oo lagu garaacay gantaalo magaalada. Stefanowski Rasnichenko ayaa sheegay in weerarada ka dhanka ah magaalada Dnipro ee ku taala daanta webiga Dnieper ay sii xoogeysteen Axadii. Magaalada warshada leh oo ay ku nool yihiin 1 milyan oo qof ayaa tani markii uu duulaanku Ruushka ku qaadeen waxa bartilmaameed u ahaa ciidamada Ruushka, balse ilaa hadda waa laga badbaadiyay burbur weyn. Dhanka kale, madaxa golaha deegaanka Dnipro Mykola Lukashuk ayaa sheegay in 5 ka mid ah shaqaalaha adeega degdega ah ee dowladda ay ku dhaawacmeen shaqo joojinta lagu sameeyay garoonka diyaaradaha. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in gantaalada la riday habeennimadii xalay ay burburiyeen saldhig military oo Ukraine ay ku lahaayeen Stefanowski, kaas oo dhowaan ay ka heleen xoojin calooshood u shaqaystayaal shisheeye ah. Axadii, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray inuu kala hadlay suurtagalnimada cunaqabateyn dheeri ah oo lagu soo rogo Ruushka mar uu wacay ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz. Zelensky ayaa ku baaqay in cunaqabateyn lagu soo rogo gaaska iyo saliidda laga keeno Ruushka, balse Jarmalka ilaa hadda wuu diiday cadaadiska lagu doonayay inuu ku dhawaaqo cunaqabateyn. Scholz ayaa Jimcihii sheegay in Jarmalka uu joojin karo saliidda Ruushka ee sanadkan, laakiin joojinta gaaska soo dejinta ayaa noqon doonta mid adag sababtoo ah waddanka wuxuu u baahan doonaa inuu dhiso kaabayaasha si uu gaaska ugu keeno ilo kale. Saliidda Ruushka ayaa 25% ka ah soo dejinta Jarmalka, iyadoo hoos ugu dhacday 35% ka hor duulaankii 24 Febraayo. Gaaska laga soo dhoofiyay Jarmalka ee la keeno Ruushka ayaa la dhimay 40% halka uu markii hore ahaa 55%, halka dhuxusha adag lagala soo degi jiray 50% haddana laga soo dejiyay 25%.